habeen wanaagsan kuna soo dhawaada qodobada ugu dooran warka habeenaya media wiil dhalinyaro kaxeynaya mootabajaaj oo gelinkii dambe ee maanta lagu dilay magaalada Muqdisho ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukuntay askari horay u dilay darawal mootabajaaj alamayaasha al-shabaab oo weerar caawa ku qaaday hooy uu degmada Balcad ka degan yahay sarkaal ka tirsan nabad sugidda degmadaas xukuumadda Soomaaliya oo warka soo saartay doorashooyinka maamulada Jubbaland iyo Galmudug maamulka gobolka Banaadir oo dib ugu celiyay qoys ay sheegeen inay in hooygooda muddo badan xog looga haystay duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacday gobolka Bari ee Puntland madaxweyne Trump oo booqasho ku tagay Japan habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan askari ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa galinkii dambe ee maanta waxa uu degmada Xamarweyne ku dilay wada mootabajaaj waxaana dilkan uu si gaar ah kaga dhacay afriirdoodka degmada Xamarweyne ciidamada amniga ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen askari falkaasi geystay oo la sheegay inuu isku dayay inuu baxsado gudoomiyaha degmada Xamarweyne oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in askariga dilkaasi geystay uu ilaalo u ahaa mid ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeelle isla markaana uu maray goobta oo mashquul badneed dilka loo geesanaya dhalinyarada kaxeysan mootabajaajta ayaa ku soo badanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho wali wararkii ku saabsanaa dilka loo geesto dhalinta mootabajaajta ayaan ku gudu jirnay ciidamada amniga waa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukuntay askari hore dil ugu geystay darawal mootabajaaj maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koobaad ayaa maanta xukun dilaha ku riday askari ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliya horeyna Muqdisho ugu dilay darawal kaxeynaya mootabajaaj isagoona dhaawac u geystay mid kamid ah dadka shacabka ah ay ku ganacsaday isgoyska Tarabuunka askariga maanta maxkamadda xukunka ku riday ayaa lagu magacaabaa dable boolis Cali Maxamuud Axmed bisha aan ku gudo jirno ee May 8 ayuu bar kontarool ku taala degmada Hodan gaar ahaan isgoyska Tarabuunka waxa uu ku dilay wiil darawal bajaaj la ahaa laguna magacaaba Cabdirsaaq Yuusuf Guure sidoo kale waxa uu dhaawacay askarigan Cali Xaashi Mataan oo kamid ah dadka ku ganacsada hareeraha isgoyska Tarabuunka dhaawacdayna xabad ka soo baxday marxuumka dhintay 18 bisha aan ku gudo jirnay heed markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay soo gabagabeysay dhageysiga eedaha loo haystay askarigan maanta maxkamadda ciidamada ay ku riday xukunka dilka ah ee maanta maxkamadda ciidamada ku riday askarigan waxa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in xukunkan lagu riday askariga uu ka qaadan karo raacfaan bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane dable booliis 25226 Cali Maxamuud Axmed 26 jir ah ina Maryan Xaash ku dhashay Kismaayo ka tirsan saldhigga booliiska wadajir kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil bareer ah iyo dhaawac isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirsaaq Yuusuf Guure oo ahaa wada mootabajaaj isla markaana dhaawac u geystay dhibane Cali Xaashi Mataan markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga iyo dhibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedeysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedeysanaha oo noociisu ahaa AK 103 number eber 8 eber 96 sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedeysane dable booliis 25226 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirsaaq Yuusuf Guure cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan waa askarigii ugu horeeyay ku eedeysan inuu dilo darawal mootabajaaj la iyadoo magaalada caasimadda ah Muqdisho ay tiro dhowr jeer ay ka dhaceen dilalka askarta u geysanaya dhalinta ka haysa mootada saddex lugaaleeda ah ee bajaajta 17 bishan ayay ahayd markii xilli ay dhaweyd salaadii subax askari ka tirsan booliska Soomaaliya oo dil degmada Hodan gaar ahaan daarta Saybiyaan ugu geystay darawal kaxeynaya mootabajaaj xilligaasna isbitaal u waday sidii sheegeen ehelka wiilka gabar fool ahayd balse uu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska iskagana baxsaday goobtii uu dilku ka geystay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa waxa ay caaw weerar ku qaadeen hooy uu degmada Balcad ka degan yahay sargaal ka tirsan nabad sugidda degmadaasi waxaana wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray degmada Balcad ay sheegayeen haatan gudaha degmada laga maqlay rasaas ay xubno shabaab ah ku qaadeen hooy uu gudaha degmada ka degan yahay sargaal ka tirsan nabad sugidda degmadaasi mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa caawa qadka telefoonka iigu waramay oo faahfaahin ka bixinaya xaaladda degmada Balcad
gacmeed laba gaaray caaw waxaa lagu weeraray inta u dhexeyso xarunta degmada iyo maxkamadda inta u dhexeyso waxaana weeraray rag ka tirsan xarakada al-shabaab goobaha la weerarana waxay u dhexeysaa xarunta degmada iyo maxkamadda gudaha inay u galeen raggaas sida noo sheegeen mas-uuliyiinta maamulka rasaasa ee dhiciso magaalada jawiina hal mar oo isbedel rasaas ay ilaa hadda dhiciso howlgallada wuu socdaa. yaa lagu weeraray xarunta maamulka degmada Balcad? waa sarkaal uu degnaay xarunta degmada iyo markaasi iyo maxkamadda inta u dhexeyso waa sida mas-uuliyiinta sheegeen. sargaalku xagee buu ka tirsan yahay? sarkaalku wuxuu ka tirsan yahay dhinaca nabadsuguda iyo ka tirsan yahay sarkaalkaasi. marka weerarku waxa uu ka dhacay hooyga uu ka degan yahay degmada Balcad sargaalkan? xarunta degmada iyo inta u dhexeyso maxkamadda uu gurigiisa u dhexeeyaa. maxaad khasaarada mashiyo dhaawac noo sheegi kartaa? ilaa hadda howlgala ayaa socdo rasaasan waa maqluuna jig culus magaalada juwi markaasi qaybeedana hal mar oo isbedelay goobaha u dhow meelahaas ganacsiga uu xiran yahay haddana ilaa hadda xaqiijinta ayaa loo hayaa ilaa hadda waxaa kusugan mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo ciidamada ayaa soo gaaray hal ruux oo dadka deegaanka inuu ku dhaawacmay ee noo sheegeen dadka qaarkood iyo mas-uuliyiinta. markaad eegto baaxadda weerarku ma wuxuu ahaa weerar saacado un kooban dhacay oo bamgacmeed lagu weeraray xaruntaas uu deganaa sargaalkan mise weerar toos ayuu ahaa oo haatan waa uu socdo dagaalka? weerar toos ah jidka magaalada ayaa jawiyeeda ayaa hal mar isbedelay waxaa la maqlay xilli la afureeyay eed jawi hal mar oo isbedelay bamgacmeedka laba markaa la maqlay rasaas xoogan waa la maqlay rag tirsan shabaab inay u galeen gudaha xarunta degmada iyo maxkamadda inta u dhexeyso iyo mas-uuliyiinta qaarkood ee sheegeen ilaa hadda rasaasta ayaa la habeen waaye howlgalana waa socdaa ilaa hadda si rasmi khasaaraha wixii uu kusoo kordhi karaa ilaa hadda rasaasta iyo waxaa maqluuna jiwo ayaa maqluuna magaalada gudaheeda. dadka ku dhageysanaya waxaad u sawirtaa xaalka guud ee degmada Balcad caawa sida uu yahay? xaalada jawi magaalada ayaa aad u kacsan caawa mas-uuliyiinta maamulka iyo howlgalana waxay ka socdaan ciidamada ayaa howlgalo ka wado xaaladu way kacsan tahay ilaa hadda howlgalada ayaa socdo rasaasna way dhicisaa laakiin wixii khasaaro uu soo kordhi karaa khasaaraha lama xaqiijin karo ilaa hadda khasaare hal ruux ay noo sheegeen laakiin noofsi waxay sasira ayaa dhici. goobjoogaha oo ku sugan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayuu kaasi ahaa waxa uu faahfaahin ka bixinayay weerar xubno shabaab ay ku qaadeen caawa guri uu degmada Balcad ka degan yahay sargaal ka tirsan nabadsugadda degmadaasi wixii war ay ku soo kordho hadduu alla idmo dhageysan doontaan. xukuumadda Soomaaliya waxa ay war ka soo saartay doorashooyinka maamulada Jubbaland iyo Galmudug oo lagu wado in bilaha soo aadan deegaanadooda ay ka dhacaan doorasho. Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warkani faahfaahinaya. wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa soo saartay habraaca doorashooyinka la filayo in dhawaan ay ka qabsoomaan dowlad goboleedyada qaar iyadoo la filayo maamul goboleedka ugu horeeya oo ah Jubbaland in bisha 8 ee Agost isla sanadkan ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimo ee maamulkaas. qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk Soomaaliya ka soo baxay oo ka kooban 2 bog ayaa lagu faahfaahiyay habraaca guud sida ay dawladdu u danaynayso inay u dhacaan doorashooyinka la filayo in dhawaan ay ka qabsoomaan maamul goboleedyada qaar oo xubno ka ah dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in mabda'a guud oo asalka u ah waa in la qabto doorashooyinka kuna dhacaan hannaan lagu qanco si dimuqraadi ah. ujeedadu waa in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay inuu soo doorto cid walba oo ku matalaysa hannaanka dalka waa in uu si dimuqraadiya dhammaan oo ugu soo dhex muuqdaan cid kasta oo danaynaysa in ay ka mid noqdaan hoggaanada u tartamaya. wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee Soomaaliya ayay tahay xilkeeda dastuuriga ah inay ka mira dhaliso hannaanka federaaleynta iyo dimuqraadiyadda dalka, xoojinta xiriirka iskaashiga heerarka dawladda iyo hirgelinta dawlad wanaagga. sidoo kale wasaaraddu waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedkeeda inuu xil ka saaran yahay in dawlad goboleedyadu ay ka taageerto qabashada doorashooyinka, inay dhorto muddada xilhaynta iyo in ay hubiso in doorasho walba ay ku dhacdo si guul ah waafaqsanna dastuurka kumeel gaarka ah qodobkiisa 46aad ee mabaadi'da guud farqadiisa 2 iyo 3. war-saxaafadeedka oo aad u dheer ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk Soomaaliya in ay iyadu ku dhawaaqayso natiijada rasmiga ah ee doorashada. sidoo kale munaasabadda waxaa ka soo qaybgalaya sida war-saxaafadeedka lagu sheegay goobjoogayaal caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo ay wasaaraddu la socoto. sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in magacaabista guddi farsamo oo loo dhan yahay kana shaqeeya soo xilista xildhibaanada dawlad goboleedyadu iyadoo qudheedu ay kaalin ku lahaan doonto. xildhibaanada golaha wakiilada dawlad goboleedyada
waxaa si madax bannaan u soo xulaya odayaasha dhaqanka beelaha ay ka soo jeedaan ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu yidhi waxaa sidoo kale gabagabada war-saxaafadeedkan lagu sheegay in dhammaan ay tahay in ay u hoggaansamaan maamul goboleedyada iyagu la filayo ay ka qabsoomaan doorasho madaxtinimo oo maamuladaasi ay yeelan doonaan. maamulka degmada Kaaraan ayaa si xoog ugu soo celiyay qoys gurigooda si xoog loogu haystay in muddo ah. ciidamada booliiska degmada Kaaraan iyo kooxda guriga haysatay ayaa waxaa dhex maray dagaal kooban iyadoona markii dambe ciidamada booliiska ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan gurigaasi kadibna ay ku wareejiyaan qoyskii guriga si xoog loogu haystay. gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud oo ka hadlay halka guriga lagu wareejinayay ayaa wax uu ka warbixiyay dagaal ka dhex maray ciidamada booliiska iyo kooxda guriga haysatay. in maanta gurigan oo aan marxalad dheer u marnay iska horimaad oo ka dhacay markii ugu horeysay falka uu dhacay dadkuna ay ahaayeen dad diris ah waxaa dhacay gurigan in muddo ah ayuu nagu qaadatay maanta waxaa ilaahay mahadiis ah in uu gacantii milkiyaha aan ku celi karno anaguna gacanteena uu ku soo noqday ilaahayna nagu guuleeyey dhacdooyinkii ka dhacay wax dhimashaha ma dhicin laakiin waa la isku taxshiriyey xabadaha ka dhacay alxamdulilah laakiin maamulka iyo booliiskaba waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo celiyeen. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir aadan Sheekh Cali Fiido oo asna ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in marnabo aan loo dulqaadan doonin dadka sida xoog ku haysta guryaha aysan lahayn. dadka guryaha noocaan oo kala degan oo hanti aysan lahayn degan waxaan ugu baaqaynaa intii sharciga iyo aysan u imaanin qofka guriga oo ka haysto inuu ku celiyo xilligii wax la kala haysan jiray oo guryaha la haysan jiray oo xoog lagu haysan jiray iyo qasabka iyo qorada ugu dhamaaday. waxaan rajaynaynaa qof kasta oo hadduu xoolo islaameed haysto inta maxkamadda iyo cadaaladda uu soo hortegin oo aan la soo qaban qofkii walaalka ahaa oo guriga iyo hantida uu ka haystay inuu ku celiyo ayaan leenahay si nabadgelyo ugu celiyo oo qaylo lahayn oo buuq lahayn laana waxa waa hadduu diido waxaa laga shaqay doonaa hay'adaha amniga iyo garsoorka iyo qof kasta inuu waxa waaye qofkaas cadaaladda la marsiiyo laga yeeli maayo dad waxa waaye hantida islaameed xoog ku haysanaya ama isbaaro u dhiganaya ama si khaldan oo kale ku qaadanaya. waxaan ka shaqaynaynaa in bulshada qof walba madax banaano inuu helo hantidiisa u madax banaanaado oo ku tasarrufo dadka dulminayana in cadaaladda aan la tiigsano. diyaaradaha dagaal ee Mareykanka ayaa duqeymo saacadihii la soo dhaafay ka fuliyeen deegaanada Puntland waxa ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab sida lagu sheegay war qoraal ah oo taliska Mareykanka ee Afrika ka soo baxay. Mareykanka oo caawinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu duqeyn diyaaradeed ka fuliyay buuraha Golis ee Soomaaliya taasi oo lala beegsanaya al-shabaab 24 bishan oo shalay ahayd ayaa lagu yiri qoraalka. warka waxa uu intaasi ku dareen in 3 xubnood oo al-shabaab ka tirsan ay ku dileen gantaalada ay halka la dhaceen iyagoo raaciyay inay xaqiijiyeen inaan dad shacab ah aanay waxba ku noqonin sidoo kalena ay sii wadi dooneen duqeymaha ay uga gon leeyihiin taageerida militariga Soomaaliya sidii ay ula wareegi lahaayeen meelaha ay joogaan al-shabaab iyo Daesh oo ay ku sheegeen qoraalkan ka soo baxay Africom. toddobaadkii la soo dhaafay ayaa sidan oo kale maalintii Arbacada ahayd duqeyn sidan oo kale ah ka fuliyeen Mareykanku gobolka Bari halkaasi oo uu sheegay inay ku beegsadeen xubno ka tirsan Daeshta Soomaaliya. waxa sanadkan kordhaya marka sanadii hore loo fiiriyo tirada duqeymaha ee la beegsanayo deegaamada Puntland gaar ahaan gobolka Bari oo ay ku awood badan yihiin al-shabaab iyo Daesh. si guudna duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sii kordhaya labadii sano ee u dambeysay kuwaasi oo meelaha ugu badan ay ka dhacaan ay kala yihiin Jubbooyinka labada Shabeelle iyo gobolka Bari. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho madaxweyne oo 4 maalmo oo rasmi ah qaadan doonta ku tagay dalka Japan kaasoo badi ku saabsan xaflad iyo sports inkastoo mas'uul sare oo ka tirsan aqalka cad uu balan qaaday inay jiri doonaan waxyaabo muhiim ah oo ay labada madaxweyne ama ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ka wada hadli doonaan kasoo fursadahan waxaa suuragal ah inay kulmaan labada mas'uul isla markaana arrimo xasaasi ay ka wada hadlaan ayaa lagu yiri war kooban oo laga soo saaray aqalka cad ee Mareykanka. labada mas'uul ayaa kulmay ama intaysan kulmin ka hor ku wada hadlay qadka telefoonka 40 jeer taas oo gabi ahaanba ah in ay isku dhow yihiin Japan iyo Mareykanka isla markaana ay siin jirin xiisad ka dhaxaysa. warkii oo dhageysiyaal caawa idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye ee Muqdisho waa naga intaa ciddu warka habeenseega waxa ay dibkaga heli karaan page-ka internet-kan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio.kulmiye.net meel walba ay joogtaan habeen wanaagsan kulmiye.net meel walba ay joogtaan habeen wanaagsan kulmiye.net meel walba ay joogtaan habeen wanaagsan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho madaxweyne oo 4 maalmo oo rasmi ah qaadan doonta ku tagay dalka Japan kaasoo badi ku saabsan xaflad iyo sports inkastoo mas'uul sare oo ka tirsan aqalka cad uu balan qaaday inay jiri doonaan waxyaabo muhiim ah oo ay labada madaxweyne ama ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ka wada hadli doonaan kasoo fursadahan waxaa suuragal ah inay kulmaan labada mas'uul isla markaana arrimo xasaasi ay ka wada hadlaan ayaa lagu yiri war kooban oo laga soo saaray aqalka cad ee Mareykanka labada mas'uul ayaa kulmay ama intaysan kulmin ka hor ku wada hadlay qadka telefoonka 40 jeer taas oo gabi ahaanba ah in ay isku dhow yihiin Japan iyo Mareykanka isla markaana ay siin jirin xiisad ka dhaxaysa